waxaad u malaynaysaa inaad rabto inaad noqoto qof taajira balse xaqiiqdii waxaad rabtaa inaad noqoto qof hanti leh lacagaha faraha badan ee bil walba ku soo gasha haddana warwar lacageed unbaa ku haysa waxaanad ahaan doontaa qof ku xiran mushaar sababta aynu u fahmi laanahay dhibaatada ay nagu yeelan karto in aynu noqono qof taajira waa maadaama dhammaan dadka caanka ah ay naqaano in ay yihiin dhammaantood dad taajiriina ma ka warqabtaa dhammaan ciyaartooyada caanka ah gaar ahaan ciyaartooyada ciyaara kubadda la yidhaahdo basketballka boqolkiiba 78 dadkaasi 3 sano ka bacdi waxay noqdaan dad faqiirina videogeena maanta waxaan isku barbardhigi doonaa qof taajira iyo qof hanti leh ugu dambaysta videogan waxaan kula wadaagi doonaa sharciga boqolkiiba 4 kaasoo ka caawin doona noloshaada inaad dib dambaysa lacag aad uga fikir dadka taajiriinta waxay leeyihiin hab fikir mushahar dhammaantood lacagaha faraha badan leh ee soo gasha waxa weyn dad ku tiirsan lacagaha la'aanteedna ma noolaan karaan dhammaan lacagaha soo gasha bil walbana waxay ku iibsadaan shay'o qiimahooda mustaqbalka ay hoos u dhici karto marka ay shay'adaasna wax noqdaan mar walbana ay ku qasbanaadaan in ay lacag dib u geliyaan tusaale ahaan waxay iibsadaan gawaari qaaliya guryo qasriya saacado qaaliya iyo sidoo kale dad noloshooda aan qiimo ku lahayn kuwaasoo lacag inay ku bixiyaan mooyaane lacag aan dib ugu soo celin gaariga cusub ee Ferrari iibsadaan waxa laga siiyaa 1 milyan 5 bilood ka bacdina qiimihiisu wuxuu taagnaadaa 800,000 5 bilood gudahood waxay ku khasaaraan 200,000 taas oo mar walbana ka dhigta in ay shay'ada soo iibsanayaan dhammaantoodna ay ku dadaalaan in ay tusaan bulshada ku xeeran dadka taajiriinta ah waxay ku kalsoon yihiin xirfadooda waxayna idhaahdaan haddii aan dadaalo oo xirfadayda hormariyo oo aan dadaal farbadan juhdi farbadan aan geliyo waxay ii sahlaysaa in aan lacag badan aan helo iyagoo mar walbana hadafkooda uu yahay si aan u baashaalo waxaan u baahanahay lacag farbadan in ay soo gasho hal dhaawac oo soo gaara ay noloshoodan ku burburtaa waayo shayga ay isku haleynayeen waxay ahayd xirfadooda dadka taajiriinta waxay leeyihiin caadooyin lacageed oo aad u xunxun kaasoo bulshada badankeeduna ay ka dhaxleen nolosha wax ka xun ma leh haddii adiga laftarkaagu aad iska soo horjeedaba dhammaan caadooyinka ay leeyihiin waa caadooyin si yaroo fudud ugu sahlay in lacagaha ay dadaalka faraha badan ay u soo geliyeen in ay ka baxdo lacagaha faraha badan ee millionska ah kama warqabaan runtii bil walba ama yoomiye lacagahaasi meelaha ay ku kala baxaan halka dadka hantida leh fikirkooda uu yahay hab fikir maalgashi hadafkoodu waxay ka dhigaan dollar walba oo soo gala in ay ka shaqaysiiyaan waxayna ku dadaan lacag walba oo ay ururiyeen in ay maalgashi fiican ay ku bixiyaan kaasoo maalgashigaasina dib ugu soo celiyo lacagaha ay maalgashadeen lacagaha ay dib u soo celiyaan ay isku dayaan in ay ku noolaadaan halka kuwa taajiriintii ay ku nool yihiin lacagaha soo gala waxay lacagooda ku maalgashadaan shay'ada qiimahooda uu sare u kici karo kaasoo isaguna lacag dib ugu soo celiya bil walba sida business inay ku yeeshaan equity hadafkooduna mar walba waxa weeyaan waxay ka eegaan shay walba oo ay maalgashanayaan mustaqbalka qiimo noociyay ayuu yeelan karaa dadka hantida leh waxay ku kalsoon yihiin aqoontooda ma taqaanaa ciyaartooyga dabcan Maradona ciyaartooygan markii uu baqtiyay wuxuu ku baqtiyay faqrinimo ciyaartooygan wuxuu ku kalsoonaa waxay ahayd xirfadiisa balse dadka hantida leh waxay ku kalsoon yihiin aqoontooda iyagoo mar walba ku dadaalaya xataa aqoonta ay leeyihiin hadda in ay dib cusboonaysiin ay ku sameeyaan si joogto ah iyagoo oo mar walba niyadda ku haya in aysan lacagtu ahayn midda siin karta lacag fara badan balse kaliya ay tahay lacagtu caawiya dadka hantida leh waxay leeyihiin system runtii markii aan tan bartay noloshayda culays fara badan ayaa ka dhacay kuma kalsoona dhammaan dadkaasi waxa la yiraahdo caadaba balse waxay ku kalsoon waxa la yiraahdo system waxay samaystaan system aad u fudud kaasoo u sahla in aysan noloshooda lacag dib aysan uga fikirin hayga degdegina systemka oo ku soo waday dhammaan dadkan waxay ku dadaalaan in ay ku noolaadaan lacagaha ka soo gala systemkan warwar lacageed iyo stress iyo halkeebe lacag soo galisa oo istaayeen meel xasaasiya aynu marnay soo dhow su'aasha aan hubo inaad adiga laftarkaagu isweydiinaysa waxay tahay saan u noolaan kara aniga oo ka fikirin lacagba systemka dadka hantida leh ay isticmaalaan dadka badankooduna aysan ka warqabin waxa la yiraahdaa systemka boqolkiiba 4 sharcigan sharaxadiisa gelmeyn waxaan toos u gelinaa tusaalaha inta aynan tusaalahan u guda gelin waxa u baahan tahay calculator soo dhow talaabada koobaad inuu qaadana waxa weyn isweydii lacag intee leg ayaad u baahan tahay bil walba adiga iyo family-gaaga ka bacdi waxaanu ku dhufananaa 12 lacagta ku soo baxdaa waxa weeyaan sanadlaha lacagta aad u baahan tahay adiga iyo family-gaagu si aad u noolaataan tirada ku soo baxday waxaad u qaybisaa 0.04 ama eber 4 haddaba lacagta ku soo baxday waa lacagta ku sahli doonta in aadan dib dambaysa aadan uga fikirin lacag halkeeba iga soo gali doonta han ogaadaba lacagtani inay ga caawin doonto inaadan dib dambaysa lacag uga fikirin maxaan ku falaa lacagtan maxaan ku qabtaa waxay noo sahli doontaa talaabada labaad lacagta hadda ku soo baxday waa lacagta aad u baahan tahay inaad maal gashato shayga aad maal gashanaysaa ma noqonay shay walba oo ka soo baxo iska maal gashato waa inuu noqdaa shay ku soo gelinaya 4% sanadkii waan wax suurtagal
shaydan waxa ka mid noqon kara sida business aad adigu leedahay ama business aad saami ku leedahay ama real estate aad adiga laftarkaaga ku leedahay iyo wixii lamid ah halka shay aad aqoonteeda leedahay aad haysatidna lacagti aad u baahan aad maal gashatid si lacag dambe aad uga fikir aanu ka bixino tusaale yar aad fudud qof walba uu fahmi karo kaba soo qaad waxaad ku noolaan kartaa bil walba $500 adiga iyo family-gaaga $500 waxaad ku dhufataa 12 waxay noqonaysaa $6,000 sanadkii haddii uu videogan ilaa hadda ku cajibi fadlan like noo sar si dadka kale walaaladaan ay uga faa'iideystaan wad maasantahay 6,000 ee ku soo baxday waxaad u qaybisaa 0.04 waxa ku soo bixi doonta natiijo ah 150,000 ayaad u baahan tahay inaad maal gashatid si aad lacag aad dib dambaysan noloshaada uga fikir haddaba lacagta 150,000 waxaan u baahanahay inaan shay maal gashano shaygaasna uu dib inoogu socon ugu yaraan 4% sanad walba tusaalaha aynu qaadan karna ay qof walba u fahmi karaan waxa weeyaan kaba soo qaad 150,000 waxaad ku maal gashatay real estate guri ayaad ku dhistay haddaba waxaad ku kala dhistay 3 guri kaasoo mid walba uu ku baxay 50,000 iyo 50,000 waa 3 guri haddaba guryaha 50,000 ee lagu dhiso ee wadankii ugu yaraan waa lagu kareeyaa $200 saddex gurina waxa kaaga soo bixi doona dakhli ah $600 bishiiba lacagta aad u baahneed inaad ku noolaataan waxay ahayd 600 waxaan filayaa marka in aadan dib dambaysa lacag uga fikirin qaabka ku soo gali doonto waayo maalgashigaaga ayaa ku shaqeynaya run ahaantii sharcigan waa sharci aad u fudud balse dadka badankooda kama warqabaan si sharcigan sidoo kale uu aad kugu fudaado dib dambaysana aadan uga fikirin qaabkay lacagta ku soo gali lahayd wax hubaal in slay inuu ku anfici karo waxa weeyaan qaabka aad u maarin lahayd lacagahaaga waxa jira video dadka badankooda ay aad u la dhaceen aad u cajibi wax badan ay ka barteen videogan halkan ayaa ku soo dhigi doona ee daawasho wacan